Don't forget to subscribe our Tawheed Studio. قرما مغاشة نسوا بناي ما لندوي ما حسب صباح سيدي دبا هاست هي جبايو waxay ka mid yihiin afka marka hore wixii ku xumay wuxun yahay wixii ku sanna waysan yihiin haddii eray hees ama gabay la yidhaahdo la isugu kaa duuduubo heesta qaar bannaan baa jira laakiin waa tee gela soo looma heesi jirin inaad gelaaga ku caraabisaa hees ma bannaantay mise ma bannaana waa bannaantay cahdigii nabiga xidaaga waa la samayn jiray رفقا بالقوارير بو نبي لها صحابي اورته هوغامينيay dumarku fuushan yihiin dabeetana geelu marka la caraabinayo heesa gaaro hadaad ugu luqayso u toobiyaha qabsada jira dabeetana ninkan saxaabigi intuu nabigu kaleey salaatu wasalaam awru dhiibay dumar ay saaran yihiin ayuu nin aad u cod fiican buu hayo hees ugu luqeeyay dabeetana geeli baa tooreeyay si fiican isu daba galay awrtii baa dheeraysay markaasuu nabigu ku yidhi rifqan bilqawaariir war dumarka dhowr buu nabigu leeyahay yani ka kala daawa sidan aad u wado hadday heestu tahay tii xoolaa lagu waraabsan jiray marka la waraabinayo loogu heesay waa bannaantay hadday tahay tii maqasha lagu kaxayn jiray waa bannaantay hadday tahay tii caanaa lagu lulan jiray waa bannaantay hadday tahay tii ilmaha yar loogu heesi jiray waa bannaantay idan heestu markaynu af Soomaaliga nidhaahno hees ama gabay ama maanso ama wuxuu ka hadlay ku xirantay hadday waxun ka waramaysa ka war naag baan jeclaaday way boodiya cadayd waa kan hadaad hees ka dhigto teenani banaanay aad wad garanaysaa waayo waxun baad ku hadlay adaan heesaynin hadaad afka caadiga ku tidhaahday ku xumayd Soomaa idan horta sideedaba afka waa af hadduu heesi hadduu gabay yahay hadduu yahay wuxuu ka waramay ku xidhantay haddaba waxbaa jira heesta dheer oo inta heesa la yiraahdo hoosta laga gelinayo oo dhaqanka Soomaaliyeed kuba jirin waxaan muusiga la yiraahdo dhaqanka Soomaaliyeed gaalku la socday soo saamo ogidin horta dhaqanka Soomaaliyeed hidiye dhaqanka kuma jiro muusig safaaradii ugu horeysay bigilka la tumi jiray Ingiriiska watay hindidii la socotay عودكية كمان هي أنتي اللي قرأت شرينا قلادي عدن كتمي بالله وحنا ردمي 1950 دي 40 دي مالها كان أي نقول بلامه ويكون الرئي Somali gabay iyo heesba waa taqaaniya maanse iyo buraanburiyo wax la tiriyo waa xaraan iyo xalaal dadka ma hadii jirin haduu wax xun ka gabiyo reer isku dirayana waxa la oran jiray war waa wax xun haduu geelisa amaananaya ama wixiisana amaananaya uu ka gabiyana de loo markaynin xume waa wax fiican idan luqa ahaan hadaad u jeedaan heesi waa wixii ay ka hadlayso midhahay tirinayso iyo idinku qaldintu midho fiican tiriyo inuu yiraahdo kaasay oranayaan waa xaraan de waa midho caadiye waxaynu isku haynaa ka hadlaynaa kaamaha waa qumqumta dambe haddii Bob Marley lagu timo iyo muusiga iyo digdigta iyo macaazifta waa taata laga waramaya la leeyahay miyay bannaantay mise ma bannaana ta laga hadlaya waa ka waxa kaloo laga hadlaya waxaan laga hadlaya hadday tahay hadal xun idan waxaan u malaynayaa waxa xun waa garanaysaa waxa sanna waa garanaysaane waxba wadaad baa yiraahdo ku marmarsoonina wallahu a'lam